Bismillaahi Raxmaani Raxiim taariikhda caawa 26 bishii 6 qodobada wararka ugu waaweyn caawa hayno waxaa ka mid ah maxaabiis aad u fara badan oo ciidamada Ukraine ka mid ah oo isku soo dhiibay ciidamada dowladda Russia dagaal ba'an oo ka socday muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka Donbass gaar ahaan magaalada Severodonetsk ciidamada dowladda Russia oo halkaa mariyay gabi ahaanba cagta daawadayaal madaxweynaha dowladda Ukraine oo qeeladhaan afka ku shubta ayaa sheegay inuu wacad ku maray inuu soo ceshan doono gobollada ciidamada dowladda Russia ay ka qabsadeen iyo ciidamadiisa dib boorka looga jafin doono warka hordhowta soo dhacana wuxuu sheegayaa in madaxweynaha dowladda Ukraine uu ka dalbaday dowladaha ku shiraya dalka Jarmalka gaar ahaan magaalada Berlin ururka la isku yiraahdo G7 inay la soo gaaraan hub iyo dhaqaalaba daawadayaal afhayeen u hadlay ciidamada maxaabiista oo la qabtay ayaa sheegay inay ka dhamaatay sahayda ay wateen sidaa daraadeedna ay soo dhiibeen ciidamadan waxay ku jiraan gobolka la yiraahdo Severodonetsk magaaladaas caasimadda Donbass waa magaalada ugu dambeysay oo laga qabsaday ciidamada Ukraine daawadayaal waxaa ka dhamaaday waxay haysteenba ama raashin ahaado ama hub ahaado dabadeedna way soo dhiibeen daawadayaal dagaal baan ayaa ka socda dalka Ukraine dagaalka ilaa hadda wax waana male shidaalkii iyo maciishadii kala adduunka waa qaaliyoobeen reer galbeedka dagaalka waa ku jabeen waxaa la filayay in dagaalka ciidamada dowladda Russia si ay awalba sheegeen reer galbeedku in markay cunaqabateenada saareen in dhaqaalihiisu burburin doono sida Afghanistan uga baxay oo kalena oo uga soo bixin doono halkaas laakiin arrinka ay waa noqon weyda saas dowladda Russia waxay ciyaartay game kale daawadayaal magaalada la yiraahdo Severodonetsk gab ahaanba cagta waxaa mariyay ciidamada dowladda Russia gacanteena ku dhigeen waa magaalada ugu dambeysay gobolkaas Donbass ilaa hadda dagaalku wuu sii socdaa inkastoo maanta iyo caawa dagaalku uu xoogaa qaboobay madaxweynaha dowladda Ukraine asagu waxa waana ma dalbanayo dabka ayuu ku shishadaya dagaalka wuxuu dalbaday hub aad u fara badan oo kale iyo dhaqaalaba arrinkiina waxa ay u egtahay daawadayaal in ugu dambeynta la isku adeegsan doono hubka sida baan wax u gumaada daawadayaal dalka Russia wuxuu ka soo gaaraya hadda guulo aad u fara badan ilaa iyo xeeladu markuu bedelay oo caasimadda Kiev oo dhinaceeda uu ka soo baxay waxaa la arkayay in ciidamadiisu ay guulo gaarayeen sidoo kalena uu yaranayay khasaaraha shacabka soo gaaraya laakiin waxay sheegayaan dad u hadlay maantay oo shacaba oo degan gobolka Severodonetsk caasimadda hadda Russianku ay qabsadeen Donbass waxay leeyihiin waana la duqeeyey laakiin Russianku arrinkaas waa beeniyey dad baa nooga dhintay bay leeyihiin familiya ay ka mid yihiin carruurtoodii iyo waalidiintoodiiba iyo odayaashoodiiba waxay leeyihiin guryahayga waa la duqeeyey laakiin dowladda Russianku arrinkaas waa beenisay Russianku waxaa lagu yaqaanaa inuu yareeyo khasaaraha soo gaara dadka shacabka sida dowladda Mareykanka ama dowladaha reer galbeedka kale maaragtay markay dagaal qaadaan waxa weeye waxa uma kala aabayeelaan meel walba waa duqeeyaan shacab iyo ciidanba daawadayaal hadda jeer waxaa nooga barateen warar ku salaysan xaqiiqda iyo wararka ugu dambeeyey dagaalkan hadda caalamka dhan uu saameeyey dhaqaale ahaan iyo maaragtay iyo ganacsiga caalamka oo dhanba maciishada caalamka aad bay u kacday xagga raashinkii xagga shidaalka waa ogtihiin daawadayaal arrinkan dalka Russia wuxuu qani ku yahay gaaska iyo saliidda iyo cuntooyinkaba dalalka Afrikaankana aad bay u saameysay arrinkan maadaama tiknoolajiyada iyo dhaqaale ku filaysaysan daawadayaal waxaa kaloo oo kusoo korray dagaalka sidaad la socoteenba labada wiig hadda ugu dambeysay dagaalkii ka socday gobolka Donbass gantaal aad dowladaha reer galbeedka ugu qeeliyeen oo magaciisa la yiraahdo Uragan 220 bal waa rocket waa gantaal laga qeeliyey oo afuufaya 18 dhuumood ba ka baxay halkii mar 18 dhuumood lix bay u soconayaan waana isdabagelayaan hal bay isku daba socdaan waxayna ku dhacayaan oo u dhaxaysa ilaa 50 mitir 100 mitir meesha ku dhacayaan oo saf dheer daawadayaal meesha uu ku dhaco gantaalkan wax ciidan oo ka badbaadaya male waa gantaalka hadda guulaha u soo hoyay booskii wuxuu ku jiraa BM-ka gantaalkan aad bay dowladaha reer galbeedka ugu qeeliyeen daawadayaal dagaalkan wuxuu ka bedelay qaabka u socday waa game changer baa la magaciisa daawadayaal ciidamada dowladda Russianku waxay gaarayaan guulo la taaban karo muddooyinka ugu dambeeyay hadda waxaa ku xigi doona oo gobolkay hadda ay qabsadeen dhinaca u dhaqaaqan doonaan ilaa hadda lama sheegin ma dhinaca caasimadda aadan doonaan ma dhinaca xuduudaha kale aadan doonaan daawadayaal hadda jeer waxaa nooga bartaan warar xaqiiqda ku salaysan warkan warka ku xiga waxaan kusoo qaadan doonaa shirka ka socda Berlin iyo qodobada ay ka saaran doonaan shirkaas waana meel baa joogtaan hadda jeer waxaan isoo gudbinaynaa warar ku salaysan xaqiiqda